maanta magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirkii golaha wadatashiga qaran laakiin waxa ogaataa in halkaas ay ku shireen oo kaliya madaxda xisbi la yiraahdo cadaalad iyo wadajir oo dhamaantoodba hal meel ay ku wada jiraan hal xisbi ay ku wada jiraan sidaas darteed waxa oran karnaa madaxda xisbiga cadaalad iyo wadajir ayaa shiray waxayna ka shireen mustaqbalka iyo aayaha Soomaaliya waxaan ku akhrin doonaa xog arintaas ku saabsan sababta aan warkaan u leenahay iyo wixii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho shirkii maanta ka dhacay ajendayaasha ugu waaweyn ee looga hadlay haddii nagu cusub aan ugu soo bir muuqaalkan asay shirkari aad ma santa maanta magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirkii golaha wadatashiga qaran oo ay goobjoog ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku-xigeenka koowaad ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka SSC Khaatuma dhammaan intaas waxaa la isku yiraahdaa madaxda xisbiga cadaalad iyo wadajir sida kale hadaan u eegno shirkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo shalay oo 5 bisha la filay inuu furmo ayaa baaqda shalay maanta ayuu furmay waxay sheegeen inay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya qoraal bogga filla Soomaaliya soo dhigayna wuxuu qornaa sidan Muqdisho Maaj 6deeda 2025 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shirka madasha wadatashiga qaran oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shirkan oo qayb ka ah gogosha qaran ee uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku-xigeenka koowaad ee dalka xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isna lagu magacaabo Saalax Axmed Jaamac madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor Hirshabelle mudane Cali Guudlaabe Xuseen Cali Guudlaabe hogaamiyaha maamulka SSC Khaatuma mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Ameer ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay filla Soomaaliya shirkan oo ah mid heer qaran ayaa waxa looga arinsanayaa xaaladda dalka howlgallada xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin argagixisada dhamaystirka dastuurka iyo hanaanka dimuqraadiyadeed dib u dhiska ciidamada iyo horumarinta dowladnimada intaas looga hadlaa baa shir qaran weeye laakiin shirkan qaran waxa ka maqan Puntland iyo Jubbaland waxaa ka maqan saamilada kale ee siyaasadda ee mucaaradka ah sida madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ra'iisul hore ee dalka Xasan Cali Khayre iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagana dalka ka wada maqan iyo xubnaha kale ee mucaaradka sida Cabdiqaadir Cusuble cali ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale siyaasiyiin kale waaweyn ka maqan madasha waxaan oran karnaa halka waxaa ku shiray madaxdii qaranka oo hal xisbi ah maalinta biri ah magaalada Muqdisho ayuu uga dhawaaqi doonaa xisbigaas waxaana ka tirsan xisbiga inta hadda meesha fadhido ma waxaan oran karnaa madaxdii dalka oo aragtiyo kala duwan qaba oo deegaano kala duwan matalaya oo ujeedooyin kala duwan leh oo danta guud u socda ayaa shiray mise waxaan oran karnaa madaxda xisbiga cadaalad iyo wadajir ayaa shiray waxayna ka shireen sidii ay kuraasta u sii haysan lahaayeen oo Galmudug aan loo bedeli lahayn Hirshabelle loo bedeli lahayn Koonfur Galbeed loo bedeli lahayn gobolka Banaadir u joogi lahaa SSC Khaatuma heshiis joogi lahaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre u joogi lahaa Xasan Sheekh Maxamuud forever ayay u joogi lahaayeen ayaga ka shireen maxaa la oran karaa si guudba haddaan ku sharaxo xisbigan oo golahan ay ku midaysan yihiin ujeedada ay xisbi loo yahay in xukunka la haysto Soomaalida la hogaamiyo ayaga ay dowladnimada ahaadaan marba hadii sidaas xisbigu u dhisan yahay oo xukun lagu raadiyo xisbiga intii xisbiga ku heshiisana ay maanta shireen waxa la oran karaa hal xisbiya shiray sidii ay u joogi lahaayeen iyo siyaasadda Soomaaliya sidii u sii haysan lahaayeen ka shireen ma jiro war kale inta dhaafsiisan oo shirkan ka soo baxay dhinacyo kala duwan ka hadlay way cambaarayeen waxayna tilmaameen inay ka walaacsan yihiin shirkan iyo halka dhinaca furmay maqnaashaha Puntland iyo Jubbaland iyo madaxda kale ee mucaaradka ah rajo weyn ma jirto oo laga naawilay shirkan wax ka soo bixi doona laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin in natiijo wanaagsan aysan ka soo bixi doonin oo aad loo cambaaraynayo ugu dambeyntii waxaan eegi doonaa marka uu soo dhamaado iyo natiijada shirkan ka soo baxda beesha caalamka waxay raadinayeen shirkan ka duwan oo ah shir Soomaaliyeed oo looga hadlayo dastuurka oo dooda ka taagan oo looga hadlayo doorashooyinka oo looga hadlayo arrimaha ammaanka iyo midnimada looga hadlayo beesha caalamka raadinaya cadaadis madaxda qaranku saareen laakiin hadda waxaa muuqanaysa in meel la iska dhigay oo wixii ayaga ay rabeen madaxda qaranka halkaas ay ku shirayaan si kastaba ahaata Soomaalida u dan Soomaalidu inuu heshiiso dowladnimada Soomaaliya xoogaysato ama iyadoo la kala maqan yahay xoogaysato ama iyadoo la wada jiro sida saxda ah waxa way
inaanay marna dowladnimo Soomaaliya isma doonin inta la kala maqayaa wixii hore ku soo kordha waxaan ku soo gudbi doonaa wararkii barnaamijyada dambe adina aragteen la wadaag qaybta hoose faalada muuqaalkan soo share garay haddana nagu cusubtaan nagu soo beer